يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا شوفي حشيال أصحابتي إذا أدبادو مهسنتين فضلا هدي مركا كوغو رسالة شانك سو بوقتاي تاي سبسكرايب إنو سار داد هرون دولو شوفتنا أدبادو مهسنتاي كسو دوادا شان شاي oo aad naftaada wax kaga bedeli kartid ama aad horumar ku gaari kartid. Shantaa shay waxay kala yihiin lambar 1 naftaada ku xidh cabsida Ilaahay iyo xariga Ilaahay. Markaan saa leeyahay naftaada bar inay gudato waajibaadka Alle sida salaada, soomka, wanaaga, sadaqada, waxyaabahaas oo midhan oo ay salaadu kow ka tahay bar naftaada si ay xagga Ilaahay iyo xagga adduunkaba iyo xagga aakhiraba ay horumar uga gaadho oo ay u higsato waxyaabo fara badan ducadeedana loo aqbalo. qodobka labaad bar naftaada go'aan qaadashada. go'aan qaadashada waxay ka mid tahay waxyaabaha lambar 1 oo ah nolosha oo ay haddii tahay inaad xumaan go'aan ka qaadanaysid, hadday tahay inaad wanaag go'aan u qaadanaysid, hadday tahay inaad si kaleba aad go'aan u qaadanaysid. go'aan qaadashadu waxay kow ka tahay nolosha. anoo si faahfaahinayo go'aan qaadashada waxaad go'aan ka qaadanaysaa waxyaabo kasta suuro gelinayn inaad horumar gaadhid ama aad go'aan u qaadanaysid waxyaabo aad horumar ku gaadhi kartid. tusaale ahaan waxaad go'aan ka qaadanaysaa waxyaabo kaa hortaagan ama caqabad ku ah inaad horumar gaadhid. tusaale ahaan waxaad go'aan u qaadan kartaa waxyaabo kugu dhiirigelinaya ama horumar ku gaadhsiinaya ayaad go'aan ku qaadan kartaa. marka go'aan qaadashadu waa muhiim. lambar 3 la tashi samee. waxaad la tashi ku samaynaysaa ama la tashi la samaynaysaa dadka gaadhay guulaha horumarka ee la taaban karo. ayaad ray ahaan iyo wax kasta ahaan iyo la tashi ahaan aad weydiinaysaa. lambar 3 waxaad samaynaysaa dhiirigeli naftaada. dhiirigelintu waa shay muhiim ah ama ha noqoto dhiirigelin adigu is dhiirigelinaysid ama ha noqoto mid dabadda kaaga imanayso oo dadka kale ku dhiirigelinayaan. dhiirigelintu waa shay aad u muhiim ah. marka adigu naftaada dhiirigeli. haddaadan naftaada dhiirigelina cid ku dhiirigelin kartaa ma jirto ama cid ku dhiirigelinaysaa ma jirto. waayo waxaad ogtihiin in naftaada oo aad jeclaato oo adigu is dhiirigeliso ay sababayso ama ay sababi kartaba in dadka kale ay ku jeclaadaan oo saa dadka kale ay ku dhiirigeliyaan. laakiin haddaadan naftaada jeclaan oo aad naftaada dhiirigelin cid ku dhiirigelinaysaa ma jirto, cid ku jeclaanaysaana ma jirto. lambar 4 kalsoonisi naftaada. saynu ognahay kalsoonidu waa shay cajiiba. ha noqoto kalsooni aad naftaada ku qabtid, ha noqoto kalsooni aad qof kale ku qabtid, ha noqoto kalsooni aad ku qabtid Ilaahay ku abuurtay. waxa weeye kalsoonidu waa shay muhiim ah. kalsoonidu waxay kuu horseedaysaa inaad naftaada aad ku kalsoonaatid oo aad horumar gaadhid oo wax kasta oo aad leedahay qabo kalsoonidaadu ay ka dhigto mid dhab ah. markaa kalsoonidaada kobci. waxaanad ku kordhin kartaa ama ku kobcin kartaa kalsoonidaada adiga oo isdhiirigeliya oo saan soo sheegnay aad naftaada jeclaatid. qodobka u dambeeya 5aad waxaan ku soo gabagabeynayaa samee ficil ama waxqabad. markaan saa leeyahay waxaad samaynaysaa wax kasta oo aad u aragtid inay wanaagsan yihiin oo aad talentigeeda leedahay ama aad kartideeda leedahay ama aad awoodidba. hana ka labaynin oo ha odhanin toloma sameeyaa toloma ka daayaa. haddaad waxaa u aragtid inay wanaagsan yihiin, naftaada wax ka bedeli karaan, diintaada aanay waxyeello u geysanayn, sharaftaada aanay waxyeello u geysanayn, samee. hana ka labayn. markaa samee wax kasta oo fikrada oo maskaxdaada ku soo dhaco wanaagsan oo aad u aragtid inay wax qabad yihiin ama horumar naftaada ay u yihiin ama dadka kale ay wax ku soo kordhinayaan. samee kuna dhaqaaq isla markaaba. sidoo kale samee
waxyaabaha maalinlaha ah ee naftaada ay horumar ku gaadhayso, sida inaad wax soo kordhisid, inaad fikrad cusub keentid, inaad naftaada aad u samaysid waxyaabo joogto ah oo sida jidhkaaga dhistid, inaad maskaxdaada kobcisid, inaad wax baratid, inaad subax kasta xilli hore ama salaad hore ama xilliga salaada subax aad kacdid, ama xilli cayiman aad kacdid, inaad xilli cayiman aad seexatid, inaad xilli cayiman aad wax cuntid. waxyaabahaasoo dhani waxay ka mid yihiin waxqabadyada maalinlaha ah ee aad naftaada ku tarbiyadeyn kartid, ee ku sii gudbinaya waxyaabaha waaweyn ee ah inaad qabatid ee waxqabadka ah. marka ku dhiiro, hana ka istaagin, hana ka labalabayn, hana ka biqin inaad fikraddaada ama waxyaabahaaga maalinlaha ah ama waxyaabaha waxqabadka ah aad ka istaagtid, ee ku soco. marba marka ka dambeysa aad kusii socotidna waxay kugu sii dhaweynaysaa ama kugu sii hagaysaa waxaa weeye guusha. sidoo kale ha ka niyad jabin, hana ka istaagin in aad ka gungaadhid ama aad ku guulaysatid inaad hadaf ka gaadhid ama aad waxqabad ka gaadhid ama aad waxyaabaha aad ka dhawaysid. sida la ogyahay caqabaduhu way iska jiraan. waxaa laga yaabaa dadka badanaa inay markay ficilada ama waxyaabaha ay isku dayaan in ama wax isku dayaanba in caqabad yar ay ka hor timaado ama wax yar kasii noqdaan, dabeetana ay iska taagaan gebi ahaanba, dabeetana wixii ay faraha ka qaadaan. laakiin ha isdhiibin, wax kastoo kaa hor yimaada ama caqabad kastoo kaa hor timaada ku dhaqaaq. waxaa ilaa aad ama gunta hoose aad ka gaadhaysid oo aad gunta hoose soo taabanaysid. dadka guulaha gaadhay badanaa waxay marka taariikhdooda laga warramayo may ahayn kuwa isdhiiba, may ahayn kuwa niyad jaba. waayo mar kastaad waxa ku celcelaysid ama aad tijaabadiisa badisid ama aad iskudaygiisa badisid ama aad dadaalkiisa badisid ama aad kalsoonida aad u qabtid aad sii badisid, waa mar kasta oo aad kusii dhowaanaysid inaad horumarka ama shaygii aad guul ka gaadhay ama gaadhisid. marka ha ka istaagin, horo wad ilaa aad ka gaadhaysid hadafkaaga ah inaad gunta soo taabatid ama waxaa ama ficilkaa ama waxqabadkaa ama fikraddaa aad ka guul gaadhaysid oo aad guul ka soo hoynaysid. marka mar kastoo aad ficil samaysid ama aad waxqabad samaysid kuma khasaaraysid. xataa haddaad aad guusheedii gaadhi weydo oo aad ku fashilanto ama aad qaban weydid kuma khasaaraysid. waayo mar kasta waxaa laga yaabaa inaad waayo aragnimo iyo xirfad kale iyo kalsooni iyo waayo aragtinimo aad ka kororsatid ayaa mar kasta laga yaabaa. marka iskudaygu waa muhiim. iskuday la-aanna wax kasta ma yimaadaan, wax kasta iskuday bay ku yimaadaan. hadday shaqo noqoto, hadday wax kasta noqoto, hadday maamulid noqoto, hadday madaxweynahaba u aragteenoo dee ilaa uu doorasho tartan galo ama uu xusbi marka hore iska soo xaadiriyo guddoomiye xusbi soo maro, marka dambe musharax maro, dee ma yimaado kursiga madaxweynaha ma yimaado oo dee dhakada kagama soo dhaco. marka wax kasta dariiq la mare bay leeyihiin, iskuday bay leeyihiin, dadaal bay leeyihiin. marka insha allah ka niyad jabina. qof walba oo ah inuu wax isku dayo doonaya ama inuu wax tijaabiyo doonaya ha sameeyo, yaanu ka hadhin ilaa uu guul ka gaadhayo. marka asxaabta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. rabadaan kariim. 10kii dhexe rabadaan baa lagu jiraa. jawgu waa macaan yahay oo roban yahay alxamdulilah. insha allah rabadaanta 10ka dambena waxaan rajeynaynaa in dee masaajidadii iyo khayrkii iyo wanaaggii ay noo furmaan. aad baan idiin salaamayaa. waxaan idin leeyahay channelka dadku cusubtiin subscribe ha ilaawina, fideogana leegta inoogu badiya. sidoo kale bishii rabadaane khayrka lahayd baa lagu jiraa. walaalkaaga dhiban ama walaalkaaga caawimada u baahan ama walaalkaaga kaa hooseeya eeg, caawi, sadaqada sii, gudo iyo dibadba. waayo dadka badanaa wax laga yaabaa iyagoo afar nooc walba haysta oo weliba soo sawiro social mediaha soo dhiga, hadday Facebook noqotay hadday meel kale noqotaba, in walaalkii
aan haysan timir aan haysan ama waxaan ku aanu haysanba cabitaan ama aanu haysanba hadduu doono biyo oo meel bilaa biyaa ama biyuhuba ku yar yihiin uu joogo marka dadka liita ha la caawiyo siiba dadka waddankii jooga isku mid maaha laakiin dadka dhibaataysan sadaqada u baahan in sadaqada loo diro ayaan soo jeedinayaa marka khayrka ka faa'iidaysta tobankii dambe khayrkuna waa soo socdaa marka aad baan idiin salaamayaa fideogana intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad baan idiin salaamayaa